sharaf weyn bay ii tahay maanta inaynu kulankan furno ahmiyadda weyn oo qaranka Soomaaliyeed lagaga baarandegayo sidii loo maareyn lahaa wax looga qaban lahaa loo qorsheyn lahaa loo horumarin lahaa biyuhu waa asaaska nolosha sida aynu wada ognahay oo maanta isu sheegi mayno dadka Soomaaliyeed iyo geyiga Soomaaliyeedna siday biyuhu ugu yar yihiin iyo waayaha ay la soo mareen waynu ka dhergsanay reportka hadda ee hor yaalla waxa ku qoran xisaabaad iyo qiimeyn dadka run ahaantii maskaxdooda shoog ku riday 1962 biyaha guud ee per capita Soomaaliya heli jirtay waxay ahayd 2087 cubic meters haddana daraasayntu waxay sheegaysaa 411 cubic meter inta goor ee ay hoos u dhacday waad arki kartaan inkastoo ay Soomaaliya meel fog ka timi dal ahaan iyo dad ahaanba oo meelihii awal siyaasadda hal la fadhiisiyo dalal shisheeye Soomaalida lagu heshiisiin jiray oo maanta ay sharaf inoo tahay intaynu halkan fadhino mas'uuliyiin xirfad iyo aqoon leh oo ka kala socota heerarka kala duwan ee dawladda heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo sharci dejintii oo si wada jira halkan u fadhiya inay arinta biyaha iyo maamulkeeda iyo maareynteeda wax iska yiraahdaan inkastoo inuu moolfo ka nimi haddana waxa hubaala in saacada aynu fadhino qof Soomaaliyeed booyad biyo inta lagu dhaamiyo meel 70 kilomitir u jirta si loo gaarsiin lahaa laga shaqeynay ama hooyo Soomaaliyeed ay hadda biyo yari caruurteedii u ildaran yihiin waa hubaal markaas raxmadda eebe iyo roobka ay sugaan ka sokow waxay sugayaan daraal dawladeed oo bedela walaalayaal waxaan rabaa inaan dul istaagno arrimaha maanta halkan aanu isleenahay wixii farsamo ah dadka arrintan u fara dhudhuuban baan u daynaynaa laakiin arrimaha dawladdan ahmiyadda u leh loogana fadhiyo inay wax ka qabato biyuhu waxay u yihiin ta koowaad sababtuna way iska caddahay Soomaali waxay ku dhaqan tahay xoolo iyo beero wasiirkii waa jooga wasaaradda xanaanada xoolaha daaqa 67 milyan baan u maleynayaa xoolaha waa geyiga Soomaaliyeed ku nool waana gugii lixaad ama sanadkii lixaad ee biyo yar ay naqabsatay beerihii Jamaame Janaale Jawhar Mareerli iyo inta wabiyada u dhaxaysana marmar kubad baaba lagu ciyaaraa wabigii Shabeelle ee ummadda Soomaaliyeed quudin jiray waxaynu ogsoonahay markaa biyuhu halka ay Soomaaliya ugu jiraan in halbeeg aynu ka dhigano horta sidee loo maareynayaa biyaha waraabka beeraha waa dhidib weyn oo dhidibada maareynta biyaha asaas u ah maareynta waraabka biyaha iyo wabiyada waxa barbar socda sidee loo maareynayaa fatahaadaha iyo daadadka dadka biyihii wax tari lahaa waxyeello ugu bedela waa qodobka koowaad istiraatiijiyadda ay wasaaraddu ka soo shaqeysana way ku xusan tahay arrinta kale ee iyana loo baahan yahay in laga baarandegaa waxa weeye sidii wax looga qaban lahaa biyo loogu heli lahaa magaalooyinka iyo deegaanada waaweyn ee magaalooyinka ah iyo kuwa soo koraya oo baahida biyood ay aad isu soo tarayso ta saddexaad waxa weeye reer miyigii oo lafdhabar u ah dhaqan-dhaqaalaha Soomaaliyeed ama beeraley ha noqdaan ama xoolo dhaqato ha noqdaan ama labadaba dhexdooda ha joogaan sidii looga haqabtiri lahaa baahida biyo ay qabaan si nolosheenna iyo dhaqaalaheenna iyo dadnimadeena dad ahaan seen u jiri lahaynba markaasay wax looga qabto waxaan rabaa inaan dul istaago arrin farsamo maaha arrintani ama arrin hawleed maaha oo biyo inta meel laga qaado la geynayo 30 sano u dambeeyay waxaan u maleynayaa 1000 hayadood oo ajaanibihii dalkan way yimaadeen
waxayna ka shaqeeyeen wax la yiraahdo water tracking IDByo dad qaxay dad tabaalaysan oo biyo la gaarsiinay laakiin shaqadaas oo dhamay waxay ahayd shaqo ku meel gaar ah oo emergency ah oo la lahaa war Soomaali bal lagu heedo markay isku taagto qorshaha la timaado ay xulul waara ugu helaan arrimaha biyo yarida aynu dad iyo dunyaba la ildaranahay oo haatadan boqolkiiba 50 dadka Soomaaliyeed ay cirifka u saaran yihiin abaartii saameynteedii inayba macluul geyso marka mudane wasiir shaqada aan wasaaradaha kale ka hayno wasaaradda qorsheynta ayaan halkan shir ugu furay maalin dhaweyd shaqada ay wasaaradda caafimaadku hayso shaqada ay hayso hay'adda Sodma shaqada ay hayo wasiir Xasan oo halkan qorshayaal waaweyn wasaaradda cusubna dhisay hadda oo dhismayaal cusubna dhaqaajiyay qorshayaal waaweyn oo haya xanaanada xoolaha horta shaqooyinkaas oo dhan waxay ku soo ururayaan in biyo la helo oo biyo la'aantood nolol ma jirayso waxa farxad weyn ay gelinaysa in maanta aynu ka doodayno qorshe ay dawladdu soo qoratay cilmi baaris ay dawladdu samaysay oo laamihii kala duwanaa ee dawladdu ay isla kor joogteynayeen waxaan ku soo ururinayaa warkayga arrinta ugu muhiimsan ma aha waxa sektarada ka dhacaya waa the governance of the water in Somalia sidee dawlad ahaan loo maamulaya loo maareynaya webiyada dalkeena soo gala waxaan la yiraahdo dry rivers ama riverbeds waad aragteen dacro buruq iyo waqooyiga ilaa iyo garoowe daadmareed dooxada nugaalid biyaha mara oo kaliya hadii la qabto malaha Afrika oo dhan waaba ku filnaan lahaayeen biyahaasi dad nool inay naga qaataan mooyaane aqliga aynu ku qabsan lahayn lameynaniman waxaan u maleynayaa presentationka waxa ku jiri doonta hawshaas sidii water catchments iyo deep water waxaan la yiraahdo iyo ceelasha la qodo iyo sidii biyuhu inay kaydsamaan si cilmiina looga shaqeyn lahaa waa la soo bandhigi doonaa laakiin doorka ugu muhiimsan waxa weeye khayraad weeye biyuhu siday uga wada xaajoon lahaayeen una wada ilaashan lahaayeen heerarka kala duwan ee dawladda Soomaaliyeed haddii dhowr cisho ka hor ra'iisul wasaaraha qaranka Soomaaliyeed iyo wasiirka waxbarashadu ay fureen imtixaankii 3000 oo macallimiin Soomaaliyeed lagu qaadanayay waxaan u maleynayaa qorshayaashan waxa ka dhalan doona kumanaan kun oo qof oo ka shaqeyn doona biyaha Soomaaliyeed siyaabo kala duwan inay shaqo halka uga iman doonto maaha in dawladdu toos ugu shaqeyso arrimaha la xiriira kanaalada iyo sidii loo clear gareyn lahaa biyaha sidii loo catch gareyn lahaa cilmi baaris sidii loo sameyn lahaa daraasayntii ay hay'aduhu inoo hin jireen hadda idinka la soo wareegayo arrintaas sameynaya